odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda ehelada labadii sargaal ee lagu dilay deegaanada galbeedka gobolka Sanaag oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Boorama ayaa waxay markii ugu horeysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen in si degdeg ah maxkamad loo soo taago dadkii ka dambeeyay dilkii loo geystay labadaasi sargaal. waxaan maanta kaga hadlaynaa annagoo ah labada beelood beelaha xeebjire beesha xeebjira iyo beesha reer xamuud ee laga laayay raggii bariga lagu laayay labadii sargaal ay ka dhasheen oo aan muddo badan sugaynay dawladuna halgan badan madaxweynuhu galay haba saatee muddadii ay nagu dheerato 6 bilood ay marayso waa la muddeeyay haddana dib baa loo kacay baa la leeyahay. waxaan codsanaynaa hay'adaha ay qosaysa ka codsanaynaa oo madaxweynaha ka codsanaynaa in hawsha la naga soo afjaro muddo 10 cisho aanan kiiskaas naga dhamaado haddii Ilaahay ilaaho. waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu sidoo awalba talaabada u qaaday maantana uu qaado mar haddii hay'adii soo dhamaadeen baadhis iyo intuba ay soo dhamaadeen in maxkamaddu 30 bisha la muddeeyay inay maxkamaddu 10 cisho kadib nagu dhamaystiro ayaan codsanaynaa haddii Ilaahay ilaaho. waxaan leeyahay cid kasta oo ay qusaysan in xil iska saarto ayaan ka rajaynaynaa. dadkii ay ka dhasheen baan nahay waanu samirku dadku aad baan u samarnay waanu samarnay dadkayga way sabreen laakiin hal samarsiyo dadka hal samarsiyo maxkamadda sharciga la soo saaray ragaas intaasaan annagoo ah beelaha ay ka soo jeedeen saraakiishii moogtahay bariga lagu laayay muddo badanna aan soo eegayno ballanqaadkii madaxtooyada iyo hay'adaha ay qusayso aanan u dhegtaagaynay maxay ahaydaan waxqabad iyo cadaalad annagoo u dhegtaagaynay waxaan codsanaynaa in sharciga la hor keeno dadkii maxay ahaydaan dhibtaa geystay ee ku moogtahay xasuuqay saraakiishii bariga. takale labaadna waxa weeye ballankii madaxtooyada waxaan ka codsanaynaa ay qaaday inay sharciga nagu qancinayso waxna ka qabanaysa dhibaatada meesha taallay in ballankii madaxweyne aad fuliso sharciga iyo hay'adaha ay qusaysanaa aad u dalabto waxa ay maatida ay ka hadhay ay ku qanci kartay sharcigu moogta la waafajiyo. annaguna aan haddaanu nahay duqaydii ka soo jeeday beelaha ay raggaasi ka dhinteen waxaan rajaynaynaa aanan kaafilaynaa madaxweyne inaad sharciga nagu qanciso. saraakiishii sida qorshe loogu laayay bariga waxaan dawladda ka codsanaynaa iyadoo dadaalkii yeelay inuu dadaal aad u adag ay gashay haddana waxaan ka codsanaynaa iyadoo maxas dadaalka guuleyn haddana aad maanta buuxiso inta u dhiman annagana halkeedii saas codsanayna